السلام عليكم أصحابتي waxaan leeyahay maalin wanaagsan maadaama aan maalmahan aad aan u kala mashquulnay hadda waxaan idin leeyahay maalin wanaagsan mideeda kale waxaa jira waxyaabo badan oo ka soo baxay musalsadii Turkiyada kuwa maaragtay imaanaya sanadkan cusub ama kuwa la sugay oo la doonay inay soo baxaan 10ka bisha inta badan anaga channelkan waxaynu ku soo qaadanaa Colors Cusmaan balse haddii aad doonaysaan idinka ina kuwa kale meesha aan keeno waxaa noogu reebi kartaan dhanka hoose ee commentiga haddana aynu gudagalno muuqaalkeena maanta marka hore waxaan ku bilaabaynaa in la xaqiijiyo Cusmaan in uu toos uga baxay musalsalka sida muuqaalkeena ugu dambeeyay aynu ku soo qaadanay taasna waa mid la hubo 100% Burak Özçivit oo ka baxay taxanaha Colors Cusmaan marka taxanaha waxaa la wareegayo Orhan kaas oo hadda taxanaha magaciisa laga dhigay Suldaan Orhan marka muuqaalkeena maanta waxaanu ku soo qaadanaynaa dhammaan kuwii ka baxay iyo kuwa maaragtay ku soo beerayo taxanaha adi 100% kama wada baxayaan jilayaasha balse waxaa la bedeli doonaa kuwa jilay seasonka lixaad oo waxaa imaanayo doorar cusub yacni doorka sidiisa u taagnaanaya magaca iyo maaragtay sidiisa u taagnaanaya balse waxaa maha ka baxayo qofka jilay oo lagu bedelayo qof kale marka hadda waxaynu soo qaadanaynaa kuwii la bedelay oo maaragtay doorarkooda doorar kale lagu bedelay waxaan ka bilaabaynaa Cusmaan waxaa lagu bedelay Jihaan Unaal kaas oo hadda ku jili doona asigoo duqoobay yacni Cusmaankii oo duqoobay ayuu ku jilayaa halka kale Orhanna waxaa la wareegay Mart halka doorkii Nolfera ama Holferana ay la wareegtay gabadhan aad arkaysaan sidoo kale xitaa waxaa la bedelay doorkii Malhoun Hatun oo lagu bedelay ayadana gabadhan aad arkaysaan sidoo kale booskii Fatima Hatun waxaa lagu bedelay isla gabadhan ayadana arkaysan sidoo kale Maxamed Boosdag wuxuu wada hadal kula jiraa Anur Bey iyo Anil Jelik si ay uga mid noqdaan taxanaha Orhan ama Suldaan Orhan sidoo kale Maxamed Boosdag wuxuu heshiis kula jiraa labada jilay ugu waaweynaa ee ku jiray Colors Cusmaan sida Turgut iyo Aykut kuwaas oo doonayo inay sii wataan taxanaha Suldaan Orhan yaanan ka tagin sidoo kale Halimi sida dad taqaanaan ayadana waxaa matali doona doorkeeda Elif Ulusoy ama gabadhan aad arkaysaan sidoo kale Din Diamond jilaal dhaho ayaa ku soo biiray taxanaha Suldaan Orhan asigoo matalaya doorka Axmedkii horeba oo waagii Cusmaan joogay masawa Axmed cusub taas waxaa noo kala cadeey doonta doorka uu qaato iyo markii uu soo baxo taxanaha insha Allah sidoo kale waxaa ku soo biiray Barish oo ciyaari doona Mudane Shahin Shah ugu dambeyn wiilkii yaraa oo u dhalay Charkutay kaas oo magaciisu ahay Ghazi waxaa doorkiisa matalaya oo la wareegi doona wiilkan aad arkaysaan kaas oo hadda ka soo baxay taxanihii Maxamed Faatix sidoo kale waxaa ku soo biiray wiilkan yaraad arkaysaan Mart NG kaas oo matali doona wiilka u dhalay Orhan Suleymaan ina Orhan weli waxaa jira jilayaal kale oo ku soo biiray taxanaha Suldaan Orhan waxaa ku soo biiray wiilkan aad arkaysaan Anur Bey oo matalayo Yagit sidoo kale aktarada Hilaal Tufeek ayaa qayb ka ah taxanaha Suldaan Orhan balse weli lama shaacin doorkeeda ama doorka ay ku matali doonto waxaa kaloo jira odagaan isagana aan la shaacin weli doorka oo ku matali doono taxanaha Suldaan Orhan balse waxaa jira dad idin ka mid ah oo yaqaana siiba kuwa daawaday musalsalka bahalka ama Yabani sidoo kale yaana ka tagin doorarka xumaanta in kastoo aan weli doorar badan xumaan aan la doorin yacni kuwa ka soo horjeedi doona Suldaan Orhan balse waxaa la dooray hadda midka hogaamin doona Bursa ama la dagaalami doona Suldaan Orhan si uu uga difaacdo Bursa waa hogaamiye basanta ah laguna magacaabo Komatano Vasilios waxaana matalaya Shukru Vasildes xoogihii soo baxay muddadan bilooyinka la soo dhaafay oo intaan haddii aad doonaysaan intaan iyo in ka badan asxaabay waxaad inagula wadaagi kartaan dhanka hoose commentiga sida inaynu ka hadalno Maxamed Faatix iyo kuwa cusub ee soo socda xitaa kuwa aanan diiniga ahayn haddii aad doonaysaan waxaad inagu reebi kartaan dhanka hoose ee commentiga sidaas iyo nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh